بسم الله وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد maanta oo bishii ay labatahay December 2020 waafaqsan 17kii bishii afraad 1442 hijriya waxa ilaahay mahadiisan joognaa goobtii jaamacadda Gada International University oo ay ka socdaan shaqooyinkii dhismaha iyo hawlihii horumarinta ahaa Allah nu mahad celina subhanahu wa ta'ala ثم waxaan u ducaynaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay oo meel dhow iyo meel dheer meesha rabaan ha joogeen waxa farxad noo maanta in uu naga soo booqday oo halkan uu nala jooga walaalkeen ustaad Cabdullaahi Macallin Cabdiraxmaan oo runtii ka mid ahaa asaasayaalkii iyo maaragtay dadkii aad wax ugu qabtay gaar ahaan jaaliyadda Australia oo dhulkan dhagax dhigiisa iyo bilowgiisa asal u ahayd halka ayuu ka soo waday hawsha maanta waxa farxad noo anaga iyo asagaba dhulkii asagaha oo maalinka banaana oo asagoo banaan oo aan waxba ka sameysnayn ay u qoreen hantidooda in maanta asagoo guryo waaweyn oo qasri ay ku yaalaan uu nagu soo booqda indhihiisana uu ku arka walaalihii ka dambeeyay uu sii gudbin doona insha Allah warka waxaan ku wareejin doonaa ustaad Cabdullaahi Macallin Cabdiraxmaan oo hadda nala jooga xarunta Gada International University soo dhawow ustaad Cabdulle waxa ilaahay mahadiya oo ilaahay wax loogu shukriyo inaan maanta joogno meeshii aynu iska kaashanay dhamaanteen inaynu ka qabanno xaqiiqdii waxay ahayd riyo ilaahayna la tala saartay ilaahayna noo fududeeyay inta hartayna aan ka rajaynaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu noo dhamashatiro waxa ilaahay mahadi maanta inaan arko meeshii aynu bilawnay ayadoo eber ayadoo dabaqa intaan la eegay maanta aysan waxba ka harsanayn diyaar ay masaajidku diyaar yahay galaasyadii iyo feeski koobaad ay diyaar yihiin musqulihii ay diyaar yihiin dhul intaan la eeg oo weyniki inta laagna haysato wa alxamdulillah wax ilaahay lagu mahadiyo walaalihii ka qayb qaatay ilaahay ajri iyo xasanaad ha ka siiyo miisaankooda xasanaadkan ilaahay ku daro waxaan idin sheegayaa walaalayaal wixii hantidiina aad ku darsateen meeshan ku darsateen waa tan maanta wax in ka dayacan iyo wax meel aaday mala alxamdulillah waxa marqaati ka ahay meeshii inay meel qurux badan tahay laakiin ay u baahan tahay haddana noo baahan sidii marka hore ay noogu baahneed nooga sii baahi baanta hadda wax yar baa u dhiman oo dhamaashitir oo galaasyadii in la yara hagaajiyo dhamaashtirkii yarka ahaa oo salaaxitaanka waarsanta taasna waxay u baahan tahay inaan mar kale aanu istaagno insha Allah ta'ala oon ka qayb qaadano sida marka hore uga qayb qaadanay waxaana muhiim ah ogaataan dhamaanteen aan ogaana waxaan meeshan aan gelnay bas aan haysanaa wixii marka hore aan la baxnay iyo wixii aan naftanada aan shalay waxaan haysanay meel aan u raacna male calool bay galeen way ka baxeen laakiin waxaan meeshan gelinay ilaahay hortii ay yaalaan waana waxaan u hormarsanay Allah subhanahu wa ta'ala hortiisa aan u hormarsanay dadkana inaan u hormarinay deegaankana inaan u hormarinay xaqiiqdii magaaladan ku dhashay waan ogsoona waan aqaan iskuulna waan ku soo dhigtay primary waan ku soo dhigtay secondary waan ka dhigtay Dr. Xasan iyo aniga waxaan islaahin dadka reer magaalada aan islaahin dibka aan ku qabnay xilligaas mid ka daran baa hadda lagu qaba ardayda waxaan xasuusanaa inaan ka gudubno xuduud aan ka gudubno madheer aan u raasano iskuulka aan u aadno oo xuduudda naga kala xiro gurigaadana uu ku muuqdo aadna soo gali karin ee bila ku qaato gurigaada halkan ku yaalo waa dhibaatada soo marjitay Dr. Xasan iyo aniga dadkii ka gudbi jiray meeshan way garanayaan dhibaatada ay ahayd mid ka sii daran baa hadda jirto xuduudda mar walba la xiro ardayda jaamacadaha dhameysana iskuulaadka dhameeyana meel ay aadan ay garan laayeen alxamdulillah waxa maanta inay jaamacadoodana haystaan iskuulaadkoodana haystaan taasna waxa lagu gaaray dadaal baa lagu gaaray waana inaan kulligeenu anigaana ugu horeeyo insha Allah ta'ala hadda inaan joogaan raba laakiin waa u noqonaya hadii Ilaahay qadaro waxaan u dardaarmayaa khaasatan reer Australia meeshan ka imaaday hantidiini aad bilowdeen reer Australia adinka bilaaway lacagta koobaad dhulkan lagu bilaaway reer Australia lahayd haddana waxaan u nahay insha Allah ta'ala inay
inaad dhamaystiri doontaan insha allahu tacaala biidni illaahi subxaanahu watacaala. waxaan kusoo dhaweynaa kelmad doctor xasan asagana si uu maaragtay oola hadla dadkii la baxay sadaqadan iyo soo niyeystay ilaahi subxaanahu watacaala in uu u duceeyo. waxaan joognaa goobtii jaamacadda Gada International University ee degmada Beled Xaawo. ilaahay mahadii waxaana soo booqday walaalkeen Cabdullaahi Macalin Cabdiraxmaan. waad ogtihiin wuxuu ka socdaa jaaliyadda Australia oo ahayd jaaliyadii lacagta ugu horeysay dhulkan dhismahan hadda wajiga koobaad qaybtiisii hore oo dhammaan rabta dadkii bilaabay magaalooyinka ama gobolada Melbourne iyo Perth iyo Brisbane oo aad uga qayb qaatay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala horan waan ugu ducaynaynaa camalka khayrka qofka bilaaba uu ka ajir badan yahay dadka kale maxay dadka dhan ku wada dayanayaan marka ayaga bilaabay asaaska ayaga lahaa jaaliyada kala ka qayb qaatay oo ayaguna aad uga qayb qaatay Nairobi ay ka mid tahay Mareykanka goboladiisa waliba Ohio iyo meelo kaleba aad bay uga qayb qaateen. Scandinavianka waa ka qayb qaateen khayr Allah siiyo. waxaan marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa dadkaas ka qayb qaatay dhismaha gurigan weyn ee waqafka ah ee muslimiinta inay ka faa'iideystaan loo dhisay in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xoolahoodii u barakeeyo Allahna ka aqbalo wax wanaagsan uu ugu bedelo wax badan oo bixiyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo galiyo. waxaan leenahay cimrigiinii labaad bay idin galeen qofka marka uu nool yahay adduunka inna waa inta uu nool yahay inna waa wuxuu ka tago wanaagsan marka cimri dheer baad ka tagteen dadka wax kula baxay meeshan. Ilaahna subxaanahu wa ta'ala idinkama dayacaya ajarkiina. waxaadna ogaataan hawshu israacin bay rabtaa fayskan israacin buu rabaa qaybihii kalena ka qayb qaadashay rabaan isku tashi muslimiinta isku tashadaan dadka waliba Soomaalida ah ama jaaliyadaha muslimka ah ee Soomaalida ah ee deegaanka waliba waxaan u baahannahay in isku tashiga aad u xoog bato. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadku markay dadaalaan asaga garab galaya marka muslimiinta meel ay joogaanba Soomaaliya qeyrkoodba waxaan u bandhigaynaa inay ka qayb qaataan khayrkan qofka marka loo bandhigayo khayrkan oo kale asaga faa'iido ugu jirtaa oo wax u harayo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xisanaadka ugu daray ay noqonaysaa marka aad baad u mahadsantiin jazaakumullahu khayran. waxaan leeyahay soo dhawow ustaad waatana hadii waxa qabateen waa aragtaan dabcan waxaa la yiri sadar muuqda su'aal ka dhan waa wax cad waay waxa dabcan ana dhihi karto wixii shalay la qabtay oo hadii ama akoon lagu soo diray ama ayadoo muuqato kaash ah goob laga bixiyo dabcan halkaan ay ku jirtaa waxaan dareemayaa hal qof kaliya wax ma qabteen laakiin waxay dhahaan Ingiriiska money hands make work light. shaqo waxay ku fiican tahay in wadajir loo qabto marka gacmo wadajir ay wax ku gooyaan way lahaa. waxaa kaloo la yiraahdaa gacmo badan shaqo waxay ka dhigaan mid iftiinto oo nuurayso marka shaqo wadajir loo qabtay dal iyo dibadba dabcan radias baraha bay u bataane dalka dibadiisana la aado dadkiina wixii dalka joogay dib loo dhiso waa arin aad iyo aad u weyn oo xasuus aad u weyn ah marka baahidii shalay qabana wali way taagan tahay qof walbana oo ka qayb qaadan karo barnaamijkan jahliga looga baxayo oo bulshada lagu taageerayo aqoon aanan ahayn wax kale laakiin aqoon dabcan qofka hadii aqoon uu helana dhaxal uu ka haystaa